kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo la kala dhaxdhigay Maleeshiya dhawaan ku dagaalamay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe qodobada iyo qaar kale ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo xoog leh oo ka kala socdo kuwa sida gaarka u tababaran ee commandoska gorgor waxa ay geysay deegaanada dhawaan ay ku dagaalameen Maleeshiya kuwaasi oo si gaar ah ugu dagaalamay degmooyinka hoostaga Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan cadow ul ee gobolkaasi ciidamada markii halkaasi la geeyay deegaanada lagu dagaalamay ee hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa dib loo howlgeliyay baraagadihii biyaha oo maalmahan xirnaa kuwaasi oo qaarkood uu dagaalka ka bilowday waxaana si caadi ah u cabayay xoolaha qoysaska beelaha dagaalamay taliyaha ciidanka booliiska Hirshabeelle Cornel Xasan Dhicisow ayaa sheegay in ciidamada gorgor ee la geeyay deegaanada lagu dagaalamay looga baahan yahay inay gutaan waajibaadkooda amni isla markaasina si wanaagsan ay ula shaqeeyaan dadka deegaanka dhinaca kale kulan taariikhi ah ayaa ka dhacay xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyadoo kulankaasi uu dhaxmaray labada gudoomiye gobol iyo waliba xildhibaan Maxamed Abubakar Jacfar kuwaasi oo ku gaaray safar dhinaca dhulka taasi oo ka dhigan in wadada isku xirto goboladaasi oo al-shabaab shacabka ay ku dhibaateyn jireen waqti dheer hadda dib loo furay talaabadan ayaa ka dambeysay kadib jab xoogan oo ciidanka xooga dalka ay sheegeen in deegaanadaasi ay ku gaarsiiyeen kooxda al-shabaab labada gudoomiye ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe Axmed Faal iyo Cali Jeyte oo ku kulmay deegaanka Tardho oo dhawaan lagu xoreeyay al-shabaab ayaa iska xog wareystay xaaladda deegaanada lagu xoreeyay kooxdaasi iyo sidii hore lagu sii socon lahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan Axmed Faal ayaa waxa uu xaqiijiyay in ay ka wada shaqayn doonaan isaga iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan sidii guud ahaan kooxda al-shabaab lagu xoreyn lahaa Hirshabeelle loogana caawin lahaa deegaanada ka tirsan Galmudug in kooxda al-shabaab lagu xoreeyo maanta waxaan joognaa soona ceeldheere iyo ceelbaraf intuu dhaxayso annagoo maaragtay meeshaan isugu nimid dhammaan halgankii la waday labada dhinac iyo labada gobolba gudoomiyaha Hiiraan gobolka Hiiraan iyo annaga meeshaan maanta ku kulannay kulankaasoo aynu halgankii la waday meeshaan hadda isugu nimid hadduu Ilaahay yiraahdana maaragtay halganka kuma eka inta dhiman hadduu Ilaahay yiraahdo waa la dhameystiri doonaa waa shaqo aad iyo aad u dheer la soo qabtay labada dhinacba iyo labada gobolba muddo dheer waxaan ku taameynay inay labada gobol si xor anagoo gaadiidkeena wadano aan meesha rabna tigi karno beledweyne tigi karno gobolka Shabeellaha Dhexe ma karno oo meel kasta aan ku tigi karno waxaan rajaynaynaa ifafaaladaas Ilaahay maanta uu noo rumeeyay qayb kamida qaybaha kale intana hadduu Ilaahay yiraahdo way noo dhameystirmi doonaan meel kasta iyo meesha ay joogaan iyo gobolada inta kale ay ku jiraan oo diriska nalaana kama heli doono dadka maartay intay ku jiraan goboladaas kale intana haddaan ka dhameystirno goboladan inta ka dhiman maanta anaga waxa ka dhiman gobolka Shabeellaha Dhexe hadana qaybo badan dhiman laakiin hadda qaybta lagu wajahan yahay waxa ka dhiman laba degmo oo faafa ka dhiman degmooyinka waa gebagabay marayaan aadan yabaal iyo ruunirgood dhinaca kore waa loo jeesan doonaa oo wibi ka duga laakiin hadda wibi ka bariya hawsha ay maraysaa waxaan rajaynaynaa inay qaybahaasna ay dhammaan doonaan kadibna ilaa galguduud la isla geli doono ilaa meesha ugu dambeeya inaan maartay Galmudug aan laga soo xoray doono markii Galmudug laga soo jeesto ayaa u jeesan doonaa kor hadduu Ilaahay yiraahdo idoo garbasi ma leeyahay mana laga heli doono intay qawaariijta ummadda dhibaataysay ay maal Ilaahay keenay dadka sidan ay u dhibaateeyayso 16 sano iyo ka badan ay ummadda dhibaato ku hayso gudoomiyaha saaxiibkay iyo aniga muddo badan juqaal lagu jiray walina juqda waa lagu jiraa lagana bixi ma intayba joogan ayaga qayb kamid ay joogto waxaan rabaa dadka deegaankan oo ilaa ceel baraf ragga macaawisleyda oo joogo hadda dhulkan aan marayna iyo dhulkii ilaa saakaan soo marayna shabaab kuma jiro
laakiin shabaab waxa kuwa wali telefoonka ka hadlaayo kuwa maartay jawaasiista kuwa xoolaha u qaadi jiro wali dhulmaareysaayo kuwaas haddaan la qaban shabaab wali nagama lug bixin dhibaatada ugu weyn oo shabaab nagula soo naqan karo oo deegaanka dib ugu soo laaban karo waa kuwaas in la qabto ninkii maalin u shaqeeyo waa in la qabto oo la ogaado inuu shabaab nadiif ka yahay laakiin nin shabaab u shaqeey jiray inuu beledka dhinac nagala joogo oo magaalada oo wadanka dhinac nagala joogo annaga nabad kuma noolahay nabadna kama sugayno waa nagu maqan yahay waa asiga in la qabto oo laga saaro meesha deegaanka uu joogo marka waxaan rabnaa inay ragga macaawisleeda oo halkaan joogo waa raggii siyaala waa ognahay hawsha ay qabteen iyo shaqada ay qabteen haddana way noo dhiman tahay shaqo intii ka badan waxaan rabnaa inaan la daalin inaan la caajisin qof kastoo deegaankan joogto shabaab uu tagay inay qorigeeda soo qaadato oo shabaab lala dagaalamo meel kastoo lagu arkiyo goob kastoo lagu arko inaanan laga helin waa dadka naafeeyey 16 sano in ka badan deegaanadan oo Hirshabeelle isku yiraahdo labadan gobol Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan dadkooda way naafada ugu weyn u geystay markay dadka waxaad aragtiin 4 sano abaara iyo shabaab ayaa isugu darsamay dadku beerahoodii xorriyad kuma tabca karaan noloshooda si xorriyad uma noolaa karaan waxa ay intaas ka noolaa waayeen waa nimankaas qawaariijta oo inay kaligood noolaadaan inta kale ku dul joogsadaan go'aanka ku gaareen marka waxaan rabnaa inay labada gobol sida ay maanta cadawga iskaga xoreeyeen dadka cadawga xoreeyay oo kulligood labada dhinac ka soo baxayna inay yihiin maanta hal cadow inay leeyihiin inay yihiin dad walaalo inay yihiin dad hal qoysa waxaan rabnaa in qof waliba mas'uuliyadda saaran qofkii qoro wato oo kamida ragga shaqeeyahayo dhan inuu mas'uuliyadda saaran uu ogaado inuu mas'uuliyadda ilaasho xorriyadda aan maanta raadihayno waxay tahay inaan xorriyad ku noolaano inaan si xorriyada dadkan deegaanadan jooga ay ku noolaadaan noloshoodana ay xor u noqdaan wax la raadiyaa xor naqamaysid iyo xoraan naqahan isku haysanaa maanta xoraan nahay berrina xor inaan si ahaanaan rabnaa dadka hawshaas ka shaqeeyay ama ragga maarta soo baxay waxay ogaadaan inay dad mas'uuliyiin oo mas'uuliyadda ay u soo kaceen qof waliba ay ilaaliso dadkan sharafkooda iyo wanaagooda shabaab waxay dadku u sheegaan haddaan anagii ka baxno isdilaysiin ama maarta isla noolaamaysiin waa isla noolaahaynaa ismana dilayno dadkuna waa dad walaalo waxaan rabnaa in qof waliba meesha ay joogto mas'uuliyadda ka saaran ay ka shaqeyso aad iyo aad ayaad u mahadsantiin waxaan ku faraxsanay inaan maartay safarkii dheeray oo ku jirna maalmahan iyo bilaan ku soo jirnay ina aniga iyo saaxiibkii asna safarka uu soo waday amaanta meesha isugu nimid birina meel kale isugu tigi doonaa ilaa meel kasta asla tagnaan hadduu Ilaahay yiraahdo halganka waa sii wadaynaa labadeenoo garba iska heysano shirkadda Beko guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo